daawadayaasheeda dunida meel kasta ay joogaan kuna xiran janaalkeena Bandar Media waxaan idin leenahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. maanta Bandar Media waxay idiin soo diyaarisay barnaamij loogu magac daray horumarka bulshada. xaqiiqatan Bandar mar kastaba waxay diyaar u tahay bulshadeeda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay ka xaqabtirto waxyaalaha ay u baahan yihiin. barnaamijkaas maanta waxaa marti ugu ah Professor Aways Ahmed Cusmaan. Aways marka hore waan ku salaamay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آد يا هذا ومهاتسنتين بندر ميديا استوديو عزومات هذه وعزومتين وضع هذا الكان مركا آد هذا إني كجمعت علينا إن شاء الله. بروفيسور كآد يا هذا يوم هسنية هاي وقت جس قاليجا ومانتو ناس هوري سيو ونلقى بصدق برنامج هذا تحناها صوت يعني مركز تبع بندر ميديا. إن شاء الله تعالى waxaan ku soo dhaweynayaa professorka barnaamijyada uu noo soo diyaariyay aan ka wada faa'iideysano. Aways ku soo dhawa barnaamijkaaga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامجكي هرمركا نولشا oo aan marba mowduuc muhiim ah oo taabanaya horumarkeena nolosha Soomaalida oo dhan ayaa maragtay aan soo qaadanaynaa marka maantana waxaan ku soo qaadanaynaa mowduuc actual يعني موضوع oo hadda taagan oo muhiim u ah wuxuu ku saabsan yahay in aan fahamno burburka dawladnimo ama wadan markii uu qarannimadii ay burburto waxyaabaha keeni kara waxyaabaha siyaabaha loo maratay loo horjoogsan karo iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo marka si aan anagoo tabcan tusaale ka soo qaadanayno wadankeena sidoo burburay iyo waxyaabaha keeni kara iyo in general wadan walba Afrikaana dhibaatada haysata ayaa isku soo qaadanayna si cilmi ku dhisan marka wixii muhiim ahna waa ku soo qaadanayna marka wadan iyo anigoo badanaadba ku dabaqaya xaaladaha markaas aan soo qaato waxaan rabaa inaan comparison uga dhigo ama aan barbar dhigo nolosha siyaasadeed ee wadamada Yurub inkastoo isku xaalad aysan ahayn oo aad u kala duwan yihiin haddana laakiin waxyaabaha fiican ee wadamada soo koraya ka maqan iyo taariikh ahaan siyaabaha ay ku gaareen wadamada Yurub iyo wadamada Yurub waxyaabaha ka dhiman nolosha bulshada anaga aan haysano ayaan isku barbar dhigaynaa waxyaabaha wadamadan aan Yurub aan joogno iyo Mareykan ee horumaray markii aad dib u fiirisid dadka haday ka fiiriyaan dhaldhalaalkan iyo quruxda hadda maanta waxa dhici doonta in aan wiligeen gaarin maxaa yeelay wadamada Shiinaha iyo India iyo wadamo badan oo soo koraya ayaa waxay ilaa iyo hadda ku taagan yihiin tubtii ayaga ku habooneed Afrika iyo wadamada Carabtana waxay isla markii rabaan inay gaaraan Mareykan iyo Yurub ayagoo markaa dhaqaalahooda burbur inuu ku yimaado mehe aan gaari karin dalka India oo aan joogi jiray waxaan xasuustaa ilaa iyo hadda bajaajta ayaa laga isticmaalaa ayaga soo saara laakiin awood u leeyihiin inay soo dhoofiyaan maxay dhahan gawaarida ugu casriyeysan wadanka laakiin haddii 1 milyan gawaarid shacabkooda waa 1 bilyan haddii mar walba ay soo dhoofiyaan marka dhaqaale ahaan waxa kaga fiican in wax ay sameyn karaan oo gacantooda ku sameyn karaan inay gaaraan haddana inay meeshii maaragtay ku hakanin oo ay research sameeyaan oo ay dadaalaan marka waxa muhiim ah in marka laga hadlayo horumarka bulshada horumarka nolosha horumarka wadan waa in la fiiriyaa waxa keeni kara dawladnimada inay ay burburto iyo factorieska ama waxyaabaha saameynta ku leh burburka si loo ogaadana waxa waaye maaragtay waa in lagu dabaqaa wadamo kale marka hadda waxaan soo qaadanaynaa waxyaabaha ugu waaweyn anigu hadda burburka dal ama iyo sida loo soo celin karo waxyaabaha ugu waaweyn ee raba inaan ku soo qaato maanta waxa waaye dal wuxuu ku dhisan yahay shacab iyo resources oo ah kheyraad iyo shacabkii oo maaragtay si fiican loo tababaray oo human resource ah dadka badi waxay u maleeyaan wadanku inuu u baahan yahay petrol iyo dahab in la soo saaro kadib uu soconay wadamo badan oo waxaa jira aan petrol lahayn dahab lahayn beer lahayn haddana aad u horumaray waxaa jira wadamo petrol iyo uu ku badan yahay petrolka
waxaa jira wadamo Venezuela petrol badan ay leedahay, Nigeria petrol ay leedahay, Australia waxay leedahay xoolo aad u fara badan. marka laakiin wadamo waxaa jira aan xoolo badan lahayn, dhaqaale badan lahayn, laakiin maskaxdii iyo teknolojiyadii ku horumaray oo haddana gaaray. Anyway, burburka wadan waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid ah marka hore haddii shacabka inta uu yahay مثلا Soomaaliya shacabkeeda ilaa 15 milyan statistic oo rasmi ah ilaa hadda lama hayo, laakiin shacabka haddii yihiin shacab isku duuban qoomiyad wadannimo ay ka muuqato wadankooda jecel shaqeynaya, marka waxa waaye uma baahna petrol iyo waxyaabo kale. laakiin sidii loo abuuri lahaa wadani jecelka iyo in laga faa'iideysto awoodda ku jirta maskaxda iyo maaragtay xoogga dalka shacabka, waxay u baahan tahay in la yimaado waxyaabo badan, factors badan. waxyaabaha baabi'in kara awooddaasna waxaa ka mid ah marka hore haddii corruption ama musuqmaasuq uu ku jiro. hadduu meesha soo galo nidaamka meesha ka jira, haddii uu corruption ama musuqmaasuq nidaam hadduu meesha ka jiro, hadduu yimaado burbur dhaqaale oo dhaqaalihii wadanka uu ka dhisnaa hadduu burburo, haddii nidaamka dawladda lagu heshiiyey haddii uu burburo nidaamka, fahamkii nidaamka dawladda wuxuu noqon karaa mid dimuqraadi ah doorasho, wuxuu noqon karaa mid aan dimuqraadi ahayn laakiin dawlad daacad ay tahay oo muddo dheer socotay, waxyaabaha ayada faa'iidada ay helayso ay ka yar tahay shacabka waxay faa'iido helayaan. waa dawlad daacad ah oo socodsiin karta. markaa taa laftigeeda marma qaarkood way ka fiican tahay dimuqraadiyad la doortay oo markaa meeshii fooda ay ka jirto, sida waddan badan oo afrikaan hadda oo isku dayay inay dimuqraadiyad gaaraan laakiin aan ku guuleysanayn. marka waxaa muhiim ah dawlad, nidaam dawlad in lagu heshiiyo. waxaa kaloo meesha jira oo burburka keeni kara faragelin wadamo shisheeye inay timaado oo maaragtay wadamo cadow ku ah dalkii oo markaa kala burburiya. markay kala burburinayaan ujeedooyin badanaa jirta iyo waxyaabo badanaa u sabab noqon kara. taana waxa waaye mowduuc kara aan kusoo qaadan doonaa. waxaa kaloo meesha soo galaya waxyaabaha burburin kara in qabiilka ama qabyaaladda meesha wadanka qabaa'ilka uu ka kooban yahay oo maaragtay qabiilkii si xun u isticmaalay oo qabyaaladda isticmaala, qabyaaladda inay noqoto cudur marka waxaa meesha haddii intaa factorieska ay socdaan waxaa meesha ka baxaya hawshii socotay oo maalmeedka ahayd ee horumarka wadanka. wadanku wuxuu ku dhisan yahay in ay warshadihii shaqeeyaan, ganacsigu inuu shaqeeyo, in shacabkii ay isbitaaladii ay jiraan, waxbarashadii ay socoto, mar walba la soo saaro dad wadanka u shaqeeya oo nooc walba leh, macallimiin, dhakhaatiir, maaragtay lawyers ama qareeno. marka in dadkii wadanka uu shaqeyn lahaa la soo saaro, ganacsatadii inay shaqeeyaan, ay canshuur bixiyaan, marka canshuurtii la socodsiiyo wadankii lagu socodsiiyo dhaqaalihii inuu isu soo kabo. marka haddii burbur u yimaado, dhaqaale haddii uu xumaado, shacabkii awood muu laha inay bixiyaan canshuur. marka wadankii waxaa ku imaanaysaa in culeys dhinac walba ah wuxuu isku bedelayaa culeys siyaasadeed. marka shacabkii ayaa qarxi kara. marka taana waxa waaye dawlad walba oo dhisanta waa inay ku fikirtaa arrimaha soo socdan. waa muhiim. haddii la iska indha tiro, dawladdu waxay shaqaynaysaa 20 sano, 15 sano, 30 sano kadibna laakiin haddii la helo factorieskan aad looga fikiro, waxaa dhici karta in la helo dawlad stability ah oo maaragtay oo aan muddo dheer shaqayn karto. ama ha ku shaqeyso dimuqraadiyad oo wax la qaybsado, ama ha ku shaqeyso mid boqortooyo xataa ha noqoto, laakiin waa in uu jiraa horu socod iyo horumar, shacabkuna inay qanacsan yihiin, noocay ku qanacsan yihiinba. marka inta aan soo sheegnay waxaan rabaa inaan kusoo qaato saddexda ugu muhiimsan oo hadda maanta aan focus ka saarayo. waxaa ka mid ah corruptionka, musuqmaasuqa, nidaamka dawliga ah oo maaragtay hoos u dhacay, iyo cadaalad darro hadday meesha ka timaado. intaa ayaan maanta ka gaarsiinayaa inaan ka hadalno. cajaladaha kalena waxaan rabaa inaan kusoo qaato factorieska kale oo muhiima, maxaa yeele waa wax isku wada xiran. sababta aan corruptionka iyo waxaa usoo qaadanaya cadaalad darrada waxaa waaye wax isku xiran. markaa aragtid wadamadana, wadan walbana haddii shacabku ay dareensan yihiin cadaalad, waxaa imaanaysa shacabka inay ku qabaan kalsooni hay-adaha dawliga. Soomaaliya waxaa mar hore ka baaba'ay waxaa waaye
shacabkii waxay aaminsan yihiin dowladda inaysan u shaqaynin shacabka danaha shacabka marka taa markay timaado kalsoonidii ay yaraato marka waxaa meesha imaanaya dowladdii oo gaar ah iyo shacabkii oo gaar ah marka caruurtii waxaa arkaysaa in markay arkaan waxyaabahan waxa iskale waa qaranka iskale la dhaho haddii ay jijibiyaan xataa uma arkaan wax ayaga ay leeyihiin laakiin haddii la baro waxaa imaanaysaa shacabkii danta shacabka iyo danta dowladda inay isku meel noqoto taana waa tan ugu fiican marka taa waxaa keeni kara waxaa waaye shacabku inay dareensan yihiin in kheyraadka waddanka iyo wax walbo kasoo baxay wax soo saarka waddanka in si xaq ah loo qaybsaday marka laakiin haddii cadaaladara ay timaado waxaa imaanaysaa in qof wax bartay ama qof dadaalay oo muwaatin ah waddanka u dhashay in uusan helin wixii uu rabay jagadu ku habboonaa qof kale oo qabiil kale ka dhashay markaa uu sahal u ku helo markuu fiiriyo qofkan wax ma soo baranin jago weyn uu helay qofkan waxbaa soo bartay intaasoo sano soo dadaali jiray jagadii ma helin qofkii aan helin waxaa laga yaabaa inuu ka baxo hor waa u dhacday inuu waddankii ka cararo waddamo kale u tago isagoo ciil qaba dadkii noocaas hadday bataan marka hadday arkaan fursad walba oo dowladdan lagu baabi'inayo diyaaray u yihiin ay qayb galaan maxaa dhacay dowladda kama arkin in ay cadaalad lagama arkin marka haddii cadaaladara ay saa u jirtana ay badatana waxa waaye marka waxaa dowladda u fiican focuska inay saarto maalgelinta ay samaynayso waxyaabo badan inay ku bixiso shacabku inay qancaan shacabka oo dhan lama wada qancin karo laakiin waa in la tusaa intii yareed la haystay in si xaqa loo qaybsaday haddii malaayiin aan la haysanin laakiin ay tahay 100,000 oo karoon 100,000 oo shilin in shacabkii ayadoon loo fiirinin yaa tahay in ay si xaqa u qaybsadeen marka taa markii cadaaladda marka shacabkii way ciil baxayaan marka ciil baxaan waxaa dhacaysa in waddanka xataa hadduu baaba'san yahay dadkii ay ku farxsan yihiin waddan badan ayaa saas ka dhacday laakiin nasiib daro waxaa ujeednaa waxa waaye in nidaamkan hadda loo ordaayo iyo shacabkan waxyaabaha la isku haysto oo dhan problemka jira waxa waaye markii xildhibaanada loo orday xildhibaan walba wuxuu ka fikirsan yahay meeshan waxyaabaha la qaybsan doono waa inaad adiga qabiilkan u matashaa oo markii cadaalad daro ay ku timaado qabiilkaaga aad noqotid qofka difaaci lahaa haddii ay noqoto qofka waddanka u shaqeynaya qof waliba inuu isdifaaco waddankaas u yeesho waddanka wax fiican kama soo socdo waxaa muhiima loo baahan yahay in hab nidaamka nolosha ku socoto howlaha waddanka siday u socdaan ayadoon qof walba waddanku qabiilku ka dhashay aan loo fiirinin inuu nidaamkii sameeyo tusaale ahaan waxaa usoo qaadan karnaa wadamada Yurub iyo meesha aan joogno qof walba wuxuu leeyahay lambarka lama yaqaano meeshuu ka yimid meeshuu ku joogo haddii la arko waddanku uu dhashay marka adeega waa loo wada simayaa muhiim aha uma baahna inuu aqoon u yeesho wasiir hebel ama hobel maxaa yeelay nidaamka waxay ku sameeyeen inuu shaqeeyo nidaamka sidaa u shaqeeyo waxaa kaloo rabaa inaan ku daro in wadamadan hadda aan sheegayno sida Ingiriiska Yurub iyo dhibaatooyinkan hadda anaga aan ka sheekeynayno ka darnay soo mareen waa la isdilay waa isdhaceen way ku heshiin waayeen boqortooy waxaa jirta dad gumaysan jirtay oo shacabka ka mid ah markay ogaadeen waxay dhaheen shacabka oo dhan marka hore haddii aan shacabka la qancinin marka lama qaybsan karo siyaasadda lagama hadli karo qancinta shacabka waxaa ka mid ah waddanka hadduu faqri yahay hadduu horumar gaaro lacagta dhaqaalaha kor u kacay waa inuusan noqonin dhaqaale laga fikiro in waxyaabo waaweyn marka hore dhaqaalaha waa inuu ku baxaa shacabka dhulka jiifa in dhulka laga soo kiciyo in la dagaalamo gaajada haddii waddanka shacabka laga saaro gaajada waxaa arkaysaa in xanuunkii dadka uu day dadka dhan inay shaqaysanayaan taasna waxaa waa in sidii shaqo loo abuuri lahaa laakiin hadday dhacdo in wasiir walba intaasoo villa uu leeyahay intaasoo gawaari ama hal qabiil haddii waddanka qabiilka madaxweynaha ama haddii ay nool yihiin sida boqortooyo oo kale dadkiina uu ka dhaadhiciyay siyaasa la soo baxay dadkiina ay raaceen oo ay ka aamuseen waxaa meesha ku jira malaayiin qof oo aan faraxsaneen oo maartay dhool cadeynaya laakiin qalbigoodu uu aaminsan ama ka dhadhacsan tahay madaxweynaha inuusan cadaalad wadin dadka hadday sii socdaan 10 sano maalintii madaxweynaha uu liico oo dadkii ugu horeeyay oo meesha ka toori lahaa maxaa dhacay waddannimadii maaragtay ma ay gelin waxay arkeen cadaalad darada waa tan ugu weyn
ee wadan uu meesha uu ka dhismo shacabka. Faqriga dadka inta maalqabeenka iyo faqriga, the poor and the rich, the gapka u dhaxeeya, farqiga u dhaxeeya waa inuusan noqonin mid aad u sareeya. haddii wadanku uu leeyahay dad dhiman raba gaajo darteed, dadna aad guriga dhistay, marka waa tan diinta naga mamnuucday. taa haddii la dagaalamo oo shacabka oo dhan laga soo saaro gaajada, waxaa imaanaysa shacabkii inay wadankii jeclaadaan, kalsooni ay ku qabaan. laakiin haddii laga fikri kaliya horumarka loo arko in dad gaara inay noolaadaan, ama in loo arko in la gaaro wadamo kale lala tartamo, ayadoo dadkii beeraleyda ahaa, dadkii kalluumaysatada ahaa, dadkii taksiga ku shaqaynaya iyo dadkii dhan mushaharkooda inuu aad u yar yahay, caruurtooda aan ku filnayn, ijaarka iska bixin karin oo dhibaata ay ku qabaan. xitaa hadday cabsadaa waxay soconaysaa wax yar, kadibna waa la qarxaya. marka waa in la iska ilaaliyaa wadanka, in sida loo qaybsanayo awoodda, taasoo ah shacabka marka hore in ay noqdaan shacab gaajada laga saaray, faraxsan dhinac walba. kadib waxaa imaanaysa in ay qof walba meeshuu shaqaysto inuu la soo baxo. waxaa kaloo meesha jirta waxa waaye tan kale oo meesha kusoo xiran oo nidaamsa, waxa waaye waxyaabo yar yar oo waxaa jira matalan wadan shacabka oo dhan isku si ay u baahan yihiin adeega bulshada ka mid ah. wadamadan aan ku noolnahay waxa aan ka faa'iidaysan karna waxaa ka mid ah in kan maalqabeenka ah, xitaa kan ninka maalqabeenka ah ama wasiirka, asiga ayaaba ka soo horjeeda in haddii wiilkiisii uu dhaho telefoon aan direynaa, waa loo sheegaya wasiirkii ma rabo inuu arrintaa ku dhaqaaqo. wuxuu jecel yahay inuu safkii soo galo sidii u soo maro. xataa prime ministerka sababta uu sameynaya maaha awood inuusan lahayn, wuxuu sameynaya waxa waye wuxuu ogyahay falkaas hadduu sahal siiyo awooddiisa uu isticmaalo, wuxuu u horseeday shacabkii u tusay in kala sareen inay jirto, cadaalad darro inay jirto. cadaalad darro hadday timaadana waxaa imaanaysa ciilkiyaa badanaya, shacabkii waa la xanaaqayaa, dad badanaa xanaaqaya. maxaa yeele soomaaliya maanta iyo shalay iyo beritaba waxaa dhici doona waxa waaye qof wax bartay oo jaamici ah, aqoon lah, inuu taxi ku shaqeeya ama shaqo la-aan uu ahaado. qof kale ay wax isla soo barteen ama ka hooseeya laakiin ka dhashay qabiilka awoodda leh inuu meel weyn gaaro. taa haddii aan kusii socono aanan la dagaalamin, mar walba waxay noqonaysaa 30 sano kale, marka wixii waa isku soo noqonayaan. waxaa muhiim ah in marka hore aan ka fikirno dhaqaalaha iyaanan u arkin gawaari badanaa waddan kala keenay, ganacsigaa la furay, in lagu daro cadaaladii ma jirtay ma dhisantay. taasaa muhiim ah. tan kale oo aan raba inaan soo qaado waxaa waaye aan soo qaato burburka dhaqaalahana waxaa waaye wuxuu ku xiran yahay hadba sida ay waddankaas uu samaysan yahay. waddanka dhaqaalihiisa wuxuu ku xiran yahay shacabkii haddii aysan faraxsaneen, si daacadnimo waddanka ma ugu shaqayn doonaan. marka waxaa imaanaysaa in qayb keliya inay waddankii ay leedahay ay soo aragto, dadkii aan faa'iido ku qabanna inay noqdaan dadkii waddanka dab u watay oo gubi lahaa. taa hadday timaadana waxa waaye waddanka dhismihiisii burburkiisa ayaa bilaabanaya. faragelishii ayadana way jirtaa, maxaa yeelay adduunka maanta la joogo, ha noqdo Maraykan, Yurub, laba wadan oo saaxiiba ma jiro. maxaa yeelay national resourceska adduunka, international resourceska jiro waxaa loo arkaa inuu yahay wax tartan guud ka jiro. marka saaxiibtinimo oo political jirta iyo cadowtinimo qarsoon. cadowtinimadaas waxa waaye wadan walba wuxuu jecel yahay inuu noqdo wadanka mar walba lagu tiirsan yahay, wadanka mar walba wax laga gato, wadanka dhaqaale ahaan loo baahan yahay. marka haddii wadankaas oo horumar uu gaaro, wadan uu ka xoroobo dhaqaale ahaan, waxay dhibaato u tahay wadamo sida mathalan imaaraadka. waxaa lagu xantaa iyo wadamo iyo sacuudiga iyo inay faragelin nagu hayaan. faragelinta waxay ka mid tahay habka keliya cabsida ay qabaan in Soomaaliya iyo Yemen iyo wadamadan kale inay dhaqaale ahaan ay soo baxaan oo ay noqdaan wadan madax bannaan dhinaca dhaqaalaha, ay batrool soo saartaan, ay waxyaabo kheyraad oo badanka ay leeyihiin, kadibna ay horumar gaaraan. aniga uma arko, waxaan u arkaa inay khaldan yihiin wadamada. haddana waxaan u arkaa inay ay ku dhaqmaan xiilad ka mid ah xeeladaha loo baahan yahay in wadan walba inuu sameeyo, uu ka fikiro siduu isku difaaci lahaa. marka Soomaaliyana waxaa ku heeraarsan, waxaa ku wareegsan Ethiopia, Kenya, Djibouti, wadamo kale carab ah. marka waa qasab
in mar walba faragelin shisheeye inay meesha timaado taasoo macnaheeda tahay in wadamada kale hadday arkaan shacabkii oo aan qanacsaneen oo qaar ay xanaaqsan yihiin meeshii qabyaalad jirto sahal waa sida looga faa'iidaysto calaa fikra safaaradahana ma ahan keliya wax la yidhahda diblomaasi safaaradahana waxay ka shaqeeyaan waddanka inay darsaan oo ay ogaadaan waddanka maalan hadday muqdisho fadhiyaan waxaa arkaysaa inay gobollada ay aadaan waxay rabaan inay ogaadaan wax soo saarka waddanka shacabka siday u qanacsan yihiin meelaha waddanka laga soo geli kara berito haddii ay dhacdo iska hor imaad waddanku asiga matalo iyo soomaaliya hadday isku dhacaan wuu ogyahay maalin walba wuxuu qortay qabaa'ilka ku kacsan waddanka qabaa'ilka faraxsan iyo meelaha soomaalida maragtay weak pointska si uu si ururiyo berita hadday dhacdo isku dhac u yimaado si sahla soomaaliya loo weerari karo maxaa yeelay waana waxay ka mid tahay hawsha lagu qariyo diblomaasiyada in waddan walba la aruuriyo waxna loo qabto dhibaatooyinkii maaragtay waxyaabaha meelaha laga soo geli karana lasii ogaado mana aha wax maanta loo baahan soomaaliya inay iska ilaaliso waa mid ayadan indhaha ay furto ay kusii maaragtay talagasho sida isku difaaci lahayd marka waxyaabahaasoo dhan waa inaan ku talagalnaa waxaa ka mid ah matalan sababta ma isweydiisay wadamada yurub aan joogno soomaalida soo gashay maraykan iyo yurub badanaaba waxaa arkaysaa waxaa la siiyaa gargaar dhaqaale bidraag ha noqdo ama social fund oo loogu talagalayaa jira maxaa dhacay social fundigaas looguma talagelin in soomaalida ama dadka qaxootiga keliya la siiyo waxaa loogu talagalay shacabka guud ahaan oo waddankaas soomaaliya annaga waa soo dhexgalnay shacabka waxaa loogu talagalay qaarna inay shaqeeyaan qaar inay curyaan yihiin qaar inay xanuunsan yihiin qaar inay maartay in dadkii intii maartay qaar inay faqiir yihiin qaar inay dhibaatooyin kala haysato in dhammaan markii hore ma jirin 100 sano ka hor 200 sano ka hor ma jirin wadamadan aan joogno arrimaha waxaa dhici jirtay marka in dadkii insurance kuma jiraan aymis ma leh in qaarkii maalqabeentii inay noolaayeen qaarka kalena inay mar walba ay dhibaato ku jireen qaar waxay ay soo mareen wadamada Yurub inay iibiyaan organiskooda qaarkood in cidiyooda qaar ay gadaan markii taariikhda Faransa iyo Yurub laga sheekeeyo shacabka waxay ahaayeen shacab aad u liita dumarka qiimo lama siin jirin way shaqeyn jireen haddii shaqadii ay xaamilo noqoto shaqada ay ka tagto waa u dhamaatay ma soo noqon karin marka waxaasoo dhan markii ay ogaadeen 100 sano ay ku noolaan waxay ogaadeen horumarka waddanka inuu dhibaatadan ay ka jirto social problem inuu jiro marka dadkii canshuur inay bixiyaan markii canshuur ay bixiyaan canshuurtii khasnad markii lagu shubo in waxa uu weyn laga isticmaalo inay tahay dadka qaarna way shaqeysan karaan dadka xanuunsan in lacag loo qoondeeyo dadka aan shaqo la'aanta ku dhacday in lacag la siiyo in ma aragtay dumarka markii ay dhalaan in lacag la siiyo caruurta in lacag la siiyo مثلا واجي هور السيدة أنا قاكل يهان جرين فاميلكا عرور بدن أي دلان مركي سيدة إنه وليه هو أبا شغلية هدي أبا شغل كده ماتو عرور تري واتو كسول أجرتي إن فاميلكيو إنه وابا بيجري سيدة حد أي كجرتو قدام هذا عربتي إيميل قاركود أفريقيا وكله مركا وحلو هذا إن شعبكو والبا مركي دورة شيء تماذا مركا وحناقصينه سيلو قار مركا هور الشعبكو وإن لقوا حرية فقرية taasoo macnaheeda in kuwa aan shaqaysan karin kuwa maaragtay aan curyaanka ah ama dhibaato haysato iyo caruurta iyo in lacag meel loo dhigo mar walba la siiyo macnaheeda maaha ayaga in la jecel yahay waxa waaye sida familka xornimo loo siiyo ay u shaqaysan karaan kadibna ay wax u soo saaraan lacagtaas maxay ka timaadaa canshuurtii ay bixiyeen shacabka taas ayaa muhiim ah marka factorieska kale waxaa jira baabaa isku dhacay iyo arrimo kale oo muhiim ah عجلت كحت أنا كسر قادرينا مركا والبا ستيت يونت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروفيسور كأدي هذا يوم هسنية هاي برنامج كيسة بروح لبضنا ونص الجديد أنت أيام كسر جمينينا برنامج كيني ما أنت نلاش بالشدة أنت يمد أن كل مدون وحنيدين الله يعني ولكن محمد حاجة أمين يا أصحاب تيدا أنا وأسكت دوبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.